بسم الله الرحمن الرحيم نبض أرضي مeel kastoo nagala socotaan halkani waa Somali Academy maanta waxaan qaadan doonaa 10 kamid ah 10radii aynu hore u soo wadnay waana maadada chemistry-ga san horeba ugu soo faahfaahinay waa maadada kamid ah maadooyinka science-ka kuwa lafdhabarta waa walibana waana maadada inta badan ka hadlaysa materialka dhulka dushiisa yaala iyo behavior-ka leeyihiin macni behavior-ka waxaan uga jeedaa hab dhaqanka ay leeyihiin markaas taasina maanta ku qaadan doonaa qayb kamid ah walibana lesson-iska hore waxaanu ku soo qaadanay يعني هردع مادة أي لا ذهي هذا تاي فالجلاد أي سمايان عرياش مادة يعني أنت بدن بيسك أو مسال كوا إيه دمان مركز أكتر دين عيدا كلا أردن دمان تفض مركز ما أنت وحنا كو قادن دونا مركز مع 10 كمية 10 راسي مركز أكتر ما أنت 10 كائن قادن دونا و10 كحلية behavior يعني هي حبدقن كإليهين والحو markaad eegto markaan leeyahay behavior-na waxaan uga jeedaa waa maxay falgalada ay sameeyaan ay la sameyn karaan walxaha kale markaasi hadaba markaad eegto halkan waxa noogu yaala ciwaan oranaya specific heat iyo runtii sidoo kalena waxa uu heliya specific latent heat wax la yiraahdo markaad eegto specific heat wuxuu ka hadlayaa yani kelmadda specific waxay qeexaysaa inuu wuxuu wax gaar ah yahay yani maxay leeyahay meel gaar ah u go'an markaasi macni meel gaar ah u go'an waxaan u jeedaa heatku taxad buu leeyahay uu ku kululeyn karo shay una kuna gaarsiin karo markaasi inuu xaaladda ka bedelo marka kaas waxaan leenahay specific heat markaan leeyahay marka waterka xad yani heat hadii la siiyo way isbedeli karaan xaaladda iska bedeli karaan inta heat ee waad biyaha gashaa way ka duwan tahay inta heat ee dhagaxa galaysa marka kelmadda specific waxay sheegaysaa kulka walaxda galaya inuu kala wada duwan yahay heat waa general yani waa si guud laakiin se marka laga hadlayo wax loo yaqaan maxay specific wax macni waxay sheegaysaa heat-ka loo isticmaali karo in lagu dhalaaliyo barafku uu ka duwan yahay heat-ka lagu dhalaalinayo markaasi iron to kala birti lagu dhalaalinayo labadaas way kala duwan markaan leenahay specific heat waxaan u jeednaa kulka walax kastaba u gaari muxuu yahay ee ka bedeli kara markaasi xaaladda maatarku yani wuxuu iska bedelaa xaalad isagoo taga markaasi xaalad kale waxaana keenaya oo lafdhabar oo inuu isbedelo markaasi kulku marka uu kala duwan yahay waterku kul gaaray leeyihiin birti kul gaaray leedahay walax kastaba kul gaaray leedahay marka waxaan u jeednaa kelmadaas wax lagu macneynaa marka walax kastaba kulka gaarka leedahay specific heat bayna odhanayna halkan waxa kale oo ku yaala specific latent heat كلمة specific وين معناه heatنا وين معناه لكن هالكن latent بقى كيالا latent wax kala ma waa haydan waa wax qarsoon qarsoonistaasi waxaan uga jeednaa xaaladda maatarku marka ay isbedelayso marmarka qaar bay isugu jirtaa liquid iyo solid isugu jirtaa suppose ka soo qaad waterku markay iska bedelayaan barafku markuu dhalaalayo uu tagayo maxay ahayd liquid uu tagayo xaalad buu galaa ay barafki iyo biyihiis dhex socdaan marka dhalaalistii buu ku jira waxa la yiraahdaa latency of heat baa loo yaqaan markaasi yani inagoo graph ku arki doono waa maxay waa marka labada xaaladood ay isbedelayaan baa waxa loo yaqaan markaasi latency marka specific latent heat markaan isku micnayno waxay noqonaysaa heat-ka u gaara inuu xaaladda inuu maatarka ka bedelo kaba soo qaad solid oo liquid geeyo ama uu liquid ka kaxeeyo uu gas geeyo marka taas aynu bixinaynaa markaasi specific latent of heat marka uu qeexayo wuxuu leeyahay waa the energy needed to raise the temperature of a 1 kilogram of a solid liquid or gas horta aynu isla micnayno kelmadda tamar markaad eegto tamarta macnihi waxa weeyaan waxa la yiraahdaa waxa lagu qeexaa inta badan science ku qeexaa awoodda wax lagu qabto awoodda shaqo lagu qabto loo yaqaan tamar marka wuxuu leeyahay halkan waa the energy needed to raise the temperature of 1 kilogram of solid what yani wax xadiga tamar ee loo baahan yahay kelmadda markaan leenahay energy wax kale ma waa heat-ki waa kulki weeyaan waa markaasi xadiga kulka ee loo baahan yahay ama tamar loo baahan yahay in lagu qaado temperature-ka wala 1 kilogram marka walaxdaasi ama solid ha ahaato ama liquid ha ahaato ama gas ha ahaato isagoo temperature-kuna yahay 1 degree yani waa definition-ka saxda ee laga bixinayo markaasi la siinayo waxaan loo yaqaano maxay specific heat scholar waxa loo yaqaanaa materials specific heat waxa la yiraahdaa walaxdu heat-ka ama kulka khaaska ah iska leedahay u gaarka ah baa loo yaqaana waa specific heat waxay qeexaysaa marka mawduuca qaybtiisa hore waxa ku soo xigo oo kale kan kale specific latent of heat kuna muxuu yahay wuxuu leeyahay waa the energy waa heat-ka ama waa kulka needi loo baahan yahay to melt in lagu dhalaaliyo marka tii hore waxay ahayd to raise in yani saro loogu qaado temperature-ka shaygaas in saro loogu qaado temperature-ka shayga maxaan uga jeedaa yani markay leenahay biyaha marka dabka saartid biyo mar bay soo kululaanayaan
marka kuleylka sameynayaan waa temperature-kooda in sare loo qaado mar way qabow yihiin marka dambe isbedelayaan temperature-kooda wuxuu noqonayaa biyo kulul oo nad gacmaha xataa gelin kareynin laakiin se inay biyahaasi isbedelaan oo ay ka baxaan maxay ahayd kildhigo tagaan hawada kamid noqdaan waxa weeyaan tan dambe markaas ta horena waxa weeyaan inay soo kululaadaan biyahaas marka wuxuu leeyahay the energy needed to melt 1 kilogram of a solid waa yani xadiga tamar loo baahan yahay in lagu dhalaaliyo hal yani kilogram oo solid without iyadoo markaas ay isbedeleen without the change temperature kan isbedeleen color-tana waxa loo yaqaan maxay material is specific latent heat of a fusion baa la dhahdaa yani waa isbedelka markaas walaxda ay ka tagayso phase kale isku bedelayso markaas physics-ka yani si qoto dheer ugu dhigan doonta hadii la yiraahdo markaad eegto the energy tamarta needed loo baahan yahay to change in lagu bedelo that 1 kilogram of a liquid into gas loogu bedelayo at it is a boiling point is called waxa loo yaqaana material specific latent heat of a vaporization tan sare waxaynu ku qeexnay specific latent heat ka kala qaybsami doona wuxuu kala noqon doona mid xagga solid-ka ka hadlaya oo because of barafku markuu dhalaalo wuxuu isku bedelaa liquid haddana hadii dabka lagu sii kordhiyo wuxuu isku bedelaa mar dhow gas buu isku bedelaa marka hadii in leenahay barafku uu dhalaalo wuxuu isku bedelay liquid waxa weeyaan specific latent heat of a fusion kelmadda fusion ba sheegaysa yani inuu isbedelo iska bedelo maxay solid oo liquid tago hadii in leenahay wuxuu iska bedelaa liquid oo wuxuu qabtaa gas oo heatkii markuu ku batay uu uumi baxa waxaan leenahay waa specific latent heat of a vaporization kelmadda vaporization waa maxay waa uumi bixi markaasi waa maxay isbedelka inuu sameeyo markaasi inuu uumi baxo walaxda uumi baxdo halkan markaad eegto waxaynu kaga hadli doonaa boiling wax la yiraahdo boilingku wax kala ma aha walaxdii waxaynu ku sameeynaa inaan kululaynayno markaynu kululaynay heatkii markasta ku forbato particleska walaxdan dareeraha liquid ama biyo ka soo qaato saale waxay sameynayaan shaking inay luxmaan markay luxmayaan kadibna waxay bilaabayaan markaas dabarada isku hayaan inay kala jabaan haday markaa kala jabaan waxay baxayaan markaas waxay sameynayaan inay gas noqdaan ay baxaan laakiin se luxitaanka ay luxmayaan xilligaas waxay ku jiraan marka boiling inay soo karkarayaan markaas inay karkar sameeyaan marka boiling baa loo yaqaan biyaha kale marka waxa la leeyahay boiling koodu waa maxay 100 degree baa lagu sheegay yani waxa weeyaan hadayna walax kala ku qasnayn waxa weeyaan 100 degree ay ku uumi baxayaan marka ay bilaabayaan inay uumi baxaan laakiin inta 100 ka horeysaba boiling bay ku jiraan inay karkaraan karkaritaanka waxa ka dambeeya mar dhow waxay sameeyaan inay uumi baxaan boiling maxaa lagu qeexi karaa boiling waxa la yiraahdaa is the process ereygaasi hadda ka hor biology-ga waynu ku micnayno macnaheedu waxa weeyaan wuxuu inuu step soo qaato boilingku wax markiiba soo boodaya ma laakiin soo kolba biyo ay soo yar kululaanayaan until marka dambe ay sameeyaan evaporation marka process baa loo yaqaana what is the process by which taasoo the fiberku waxa weeyaan biyaha yar markii ay yani ay kala furmaan ay gas isku soo bedelayaan waxay noqdaan hoor bay noqdaan hoor oo gacanta markaas aad dul saarto kildhigu markuu karayo waxaad arkaysaa qoyaan halkan ku sameysmaya waa maxay macnaheedu hoor bay sameynayaan markaasi marka wuxuu leeyahay which the fiber pressures of a liquid cadaadiska ay sameynayaan markaasi biyaha oo mibaxaya becomes ay ku noqonayaan becomes ay yani la mid noqonayaan equal to the atmospheric pressure markii hore waxa dhacaysay pressure-ka cadaadiska guduhu uu ka badnaa cadaadiskan dibadda markaad eegto cadaadiska gudaha ee biyaha kildhiga ku jira ee karniinka sameynaya iyo cadaadiska dibaddu marka ay isleekaadaan marka biyo waxay bilaabayaan markaas boiling bay bilaabayaan inay marka karkaraan bay bilaabayaan marka taasaynu ku micnayn doonaa hadii la yiraahdo inagoo si faahfaahin doono wali ay faahfaahin badan inoo harsan tahay the constant temperature at which boiling point takes place is called the boiling point yani temperature-ka go'an ee uu ka dhaca markaasi boilingku waxa loo yaqaan boiling point markan يعني boiling ka iska daayeen boiling point macnaheeyo macnaheedu waxa weeyaan walax kastaaba waxay leedahay meel ay ku uumi baxdo meesha wixii ka dambeeya waxay bilaabaysaa inay xaaladda iska bedesho gas isku bedesho marka halkay iska bedelayso mar kastaba cabir bay leedahay degree wuxuu sheegaya maxay ama 100 ha ahaata ama ka badnaata ama ka yaraatee inay sameynaysa markaas inay uumi baxdo halkay ku uumi baxaysa walaxdaasi ayaa waxa loo yaqaan boiling point baa loo yaqaan boiling point baan odhanayna markaas halkan waxa inoogu yaala intaan qoraalkan dheer u tagin kinetic theory of matter wax la yiraahdo waa fikrad sheegaysa maxaa keenaya yani waxa dib loo sharaxaysa isbedelka uu sameeyo matterku isbedel macni waxaan uga jeedaa inuu ka tago solid oo tago liquid inuu liquid ka sii tago oo gas tago yani intii process-kaasi socdo maxaa dhaca ay ka sheekanaysa labada inta eri baan kala micnaayo kelmadda kinetic waa socod oo tamarta markii la micnaynayo waxa lagu kala micnayaa qayb potential yani tamar kaydsan baa loo yaqaan
qaybna tamarta waxa weeyaan tamar socod weeyaan waa tamartii markaa dhalinaysay maxay walxuhu inay bilaabaan inay markaa socdaan kelmadda theory wax kale ma aha waa fikrad يعني أنت بدن سنتيسكو أي قاتان أو إما كأديك يعني قفك وهاي بتصص كرين كرو ورن كرو لبوا والحدث ناس كدروا وحاسة صباحية واحد يكرت مركزي وحي هدي وصباحه يعني لبدي الشيء مركز دكتور لبدا ديناك الدكتور اسكو درتay wixii ay soo saareen maxsuul baa soo saaray laakiin markii hore fikrad baa keentay theory la oranayay marka labadan shay waxa isku xiri kara waxay isku xirayay bartanka waxa labada shay ee u dhaxeeyo waxay noqonaysaa theory ma noqonaysaa maanta nada waatan naqaano waa maxay wax kasto cuf iyo culays la meel marana buuxiya loo yaqaan maanta markaasi marka dagto markaasi kinetic theory of matter waxay ka hadlaysaa particles ku markay isbedelayaan ay xaalad ka bedelayaan xaalad kala bedel tagayaan yani sidee isku bedelaan particles kaasi waxay heat ku wuxuu ku sameeyaa inuu shay gareeyo oo ruuxo adiga arko biyo ay karkareen way luxmayaan markay luxmaan kadibna mar dhow isla rog bay sameeyaan sababta uu luxmayaan waxa weeyaan heat ku wuxuu ruuxayaa maxay isku xidhnaantooda hadii mar walba si ruuxninku ku sii bato mar dhow waxa dhacay dabarada dhexdooda isku haya jabay hadii dabaradu jabaan mar dhow waxay iska bedelayaan xaaladaas waxay noqonayaan xaalad kale oo markaasi ama gas oo kala ka soo qaad ayay noqonayaan markaasi marka wuxuu leeyahay in terms of kinetic theory of matter marka ku sharaxayso fikradda ka dambaysa habka ay walaxdu iskaga bedesho xaalad ay xaalad kale isugu bedesho markii lagu sharaxayo the boiling point of a liquid hab yani halka uu ku karkaro liquidku waxa loo yaqaanaa is the temperature at which particles gain kinetic energy waa temperature-ka ay helaan markaasi walxuhu kinetic energy kuna wax kama tamarta socodka ee ka timid markaasi dabkan aad ku wado markaasi kinetic energy ga noqonaysa at which kaasoo particles gain kinetic energy to break away from the other particles kuwaasoo markaa mar dhow bilaabaya inay ka tagaan walaxdii kale haysatay markaasi biyo ay kala furmayaan kadibna wax isku bedelayaan maxay gas bay isku bedelayaan that is escape from the body of a liquid taasina markaa waxay cadeyn u tahay inay biyihii markaasi kala baxsanayaan iyagoo kala baxsanayaan markaa inay hawada galaan markaasi taas ay markaa cadeynaysa graafkan wuxuu sharaxayaa inta aynu ka sheekeynayno oo kooban buu sharaxayaa markaad eegto inta markaad eegto yani midabkeedu uu buluug yahay markaad eegto A ila B walaxdu waa solid bay ku jirtay ilaa marka hadii biyo ka dhigno kala halkaasi waxay sheegaysaa 100 degree 0 bay noqonaysaa wixii 0 ka hooseeya baraf buu isku bedelaan biyuhu wixii ka sareeyana waa liquid anta 100 ka ay gaadhaan wax isku bedelaan marka gas halkaas oo kale hadeen ka soo qaadano oo biyihii yihiin oo ay tahay markaasi 0 degree marka temperature ku sare uga kaco waxa biyuhu bilaabi doonaan inay isbedelaan barafku wuxuu bilaabi doonaa inuu isbedelo oo iska bedelo marka solid oo isku bedelo liquid laakiin inta uu graafku uu yahay markaasi constant ka oo jiifo intaas waxay sheegaysaa waa inta latency aynu ka sheekeynayna waa specific latency intaas waxay sheegaysaa in xaaladda matterku ay isugu jirto markaasi solidkii iyo liquidkii labadiiba laakiin milan ay wado inay milanto markaasi intaasi temperature-ku isma bedelo markastaba wuxuu ku jiraa maxay constant buu ku jiraa markuu halka gaadho zida wuxuu bilaabayaa marka dhammaan inay iswada bedeleen biyihii barafkiina iswada bedelo biyo isku bedelay laakiin wuxuu mar dhow hadana dabka haduu ku sii socdo wuxuu bilaabayaa markaasi inay maxay intaas oo dhan inay liquid tahay dareere inay tahay biyo inta dheer inay liquid tahay halka waa solid halkaasna waa liquid z ila d waxay tahay markaasi liquid weeyaan oo biyuhu yani waa dareere inta markaad eegto uu jiifo hadana ee d ila e graafka markaad eegto still waxa isku dhex jira biyihii oo karkaraya qaarna baxayaan ay hawada qabanayaan ay qaarna liquid yihiin marka isbedelkii xaaladda socda tamartana waxa lagu luminayaa dhammaan heatka la sameeynaya ama kulka la sameeynaya waxa lagu luminayaa dabarada la jajabiyo laguma luminayo biyuhu inay maxay qaab kala sameeyaan laakiin wuxuu ku lumayaa dhammaan tamarta waxa ku lumaysaa maxay in dabarka la jabiyo dabarku soo marka ay u bilowdo inay kala baxsadaan marka waxay isugu jiraan intaasi d ila e waxay isugu jiraan maxay liquid iyo gas oo biyuhu karkarayaan marka bixitaan bay bilaabeen wixii e ka dambeeyay biyuhu waxay noqonayaan ilaa f waxay noqonayaan gas bay noqonayaan inta graafkaasi wuxuu sharaxayaa waa maxay isbedelka phase-ka matterka uu sameeyo wax kala ma sharaxayaan marka intaas ay sharaxayaan no graafka waliina gadaal ka faahfaahin doona hadii la helaado casharka inoogu sii xiga wuxuu noqon doonaa combustion and oxidation waa mawduuc isaguna combustion and oxidation markaad eegto ballaaran oo yacni asaga laftiisuna in la kala fahmo labadan eray ay tahay markaad eegto kelmadda combustion iyo oxidation labaduba waa gubasho markaad eegto laakiin waxay ku kala duwan yihiin maxay hayday markaad eegto walxaha ay la falgelayaan walow qaar ay noqon karaan inay mawduucu labada dhinacba aad u riidi karto markaad eegto kelmadda combustion waa gubitaanka uu gubanayo kaarboonka oo kale kaarboonku inta badan gubitaanka uu sameeyo combustion baa dhici karta
markaad eegto imika oxygen markaan ku darno organic waxyaaba shidaalka marka lasoo qoday la kala yani la gubayo waxa la sameeyaa oxygen baa lagu daray marka wuxuu noqonayaa combustion inuu carbonka inuu gubto markaasi ay soo saarto inta badan maxsuulkiisuna uu noqdo heat markaasi cool carbon dioxide iyo water uu noqdo marka combustion baynu odhanaynaa markaasi combustion inta badan waxaa sameeya waa maxay inta badan walxaha carbonka sameeya waxa kale halkan ku yaala oxidation baa ku yaala oxidation wax kale maaha iyadana waa kelmadda oxy waxay u taagan tahay oxygen addition waxay u taagan tahay addition marka waa oxygen ku darid marka la oxidation imaka kaba soo qaad curiyaan ku daray oxygen wixii maxsuulka ee soo baxay wuxuu noqday maxay curiyihii oo oxygen la socota kaba soo qaad magnesium baan oxygen ku daray waxa soo baxaya magnesium oxide copper baan oxygen ku daray waxa soo baxaya copper oxide dhamaan yani wada oxide bay soo baxeen oxide macni waxaan sheegnaa markaasi inay tahay oxidation in oxygen lagu darayo laakiin waxay u taagan tahay ayaga laftooda maxay gubashay u taagan tahay one thing is burning air markii ashyaadu hawada ku gubtaan they combine with oxygen waxay la falgalaan kelmadda combine macni waxay sheegaysaa in la falgalaan they combine waxay la falgalaan oxygen ta markaas they are oxidizer marka waxaan odhanaa waa la oxidize karay oxidizer macni waxay tahay with oxygen baa la socota marka haddaan idhaahdo magnesium oxide baan leeyahay carbon dioxide marka copper oxide iron oxide yani dhamaantood waxay wada noqdeen maxay oxidizer bay noqdeen markaas in la oxygen lagu daray the product of this reaction markaasi maxsuulka ka soo baxa reactionka falgalkan dhacay macni waa kee waa oxygen iyo walaxdii la isku daray maxsuulka ka soo baxaana is oxide macni waa wada oxide carbon dioxide magnesium oxide waxa soo dhamaanto for example tusaale markaad eegto halkan waxa inoogu yaala copper oo iyaduna bir markaasi birahan inta badan electricity-ga wire-rada ku dhex jira marka yani aynu periodic table-kana yani kamida marka copper waxa lagu daray oxygen markaad eegto kelmadda yar calaamadda yar ka ku taala plus chemistry-ga luqadiisa oo ku akhriya waxa weeyaan reacted waxay la falgashay yani reacted markaad eegto copper ba reacted with waxay la falgashay oxygen kadibna calaamadda arrow-ga chemistry-ga luqada uu ku akhriyana waa maxay waa formed waxay samaysay markaasi soo saartay produce waxay soo saartay copper oxide markaad eegto nidaamka habka loogu qorayna waa word equation yani markaad eegto marka la qorayo falgaladu sida u dhacaan qaarna chemical equation baa loo qoray qaarna word equation baa loo qoray marka as a word equation baa loo qoray marka wuxuu leeyahay copper ba reacted with waxay la falgashay oxygen and then formed waxay samaysay copper oxide wax loo yaqaan qaabkan waa chemical formki copper oo solid state ku jirta ester waxay sheegaysaa marka solid state ayaa oxygen la falgashay iyaduna gaseous state ku jirta kadibna vomir waxay soo saareen ay sameeyeen copper oxide yani waxay raadinaynaa waa maxay waa oxide maxsuulka soo baxay inuu noqonayo markaasi maxay oxide inuu noqday haddaba haddaynu leenahay oxidation wax la yidhaha baa jira oxidationka maxaa lagu qeexi karaa definition sax halka kaga bixinaynaa markaasi wuxuu leeyahay combustionka weli inaan horreysiino combustionka inaan horreysiin doona haddii la yidhaho marka combustionka markaa taste of process waa habka of a burning ay u gubanayaan something shay uu u gubto habka uu u gubto shay uu u gubanaya markaasi also it is a rapid chemical combustion of a substance waa yani degdega ay ashyaadu ku gubtaan kelmadda degdega ashyaadu ku gubtaan markii macnihii waad arki kartaa carboniga walxaha carboniga ma degdeg ku guban kara markaad eegto shidaalka oo kale marka waa maxay dabka markiiba uu jecel yahay uu qabsanaya markaasi marka ayaga degdeg markiiba uu gubto marka haddii walaxdu carbonic ba tahay waad garan kartaa markiiba dabkii waxay ku tahay maxay inay jecesha markiiba qabsanayso kadibna aad arkayso marka gubashada marka kelmadda rapid oo halkan soo geliyay yani waxa weeyaan waa chemical combustion ka dhacaya waa degdeg markaasi inta badan waxa sameeya carbonic with oxygen iyagoo marka oxygen level geliya markaasi carbonic marka markaad eegto hadday heat helaan in yaro heata oxygen dibadda iyo shidaalkii carbonic ka samaysnaa markii way isqabsanaya kadibna waxa dhacaya markaas ama waxa la yiraahdaa waxaan loo yaqaan combustionka involved wuxuu ku yacnihi inta badan uu ku taxalluqa the production of a heat and a light maxsuulka ka soo baxana wuxuu noqdaa cool iyo light yani iftiin buu noqdaa qarax baa ka dhici kara oo yani explosion buu sameyn kara marka waad arkaysaa wacda uu sameynayo ilayska uu soo saaray ama iyo sidoo kale cool badan oo markaasi uu walaxida ka soo saaray ama qaraxba dhicina waxyaaba reaction ka yarar ee labka lagu sameynayo waad arki kartaa markaasi inuu sameynayo cool badan soo saaray sidoo kalena uu light sameynayo yani habka uu falgalayaan uu sameynayo waxaa jira characteristics of combustion dabeecadaha uu iska leeyahay combustion waa maxay lagu garan karaa markaas dad qof chemist tahay waxaan waa combustion iyo combustion ma ibn adoo ka fog baad garan kartaa waxa dhacaya waa combustion ama ma baaha bade
markaad eegto always involve oxygen inta badan waxaa la falgasha oo reaction ka qayb qaadata oxygen ba ka qayb qaadata markaas oxygen waa tan gubashada keenaysa markay kul hesho sidoo kale anytime anything banis in the usual sense wax inta badan si caadi isaga dhaca oo yani waa gubashada sida caadiga iskaga dhacda waqti kasta way dhici kartaa wax kastana meel kastana way ku dhici kartaa sidoo kale almost markaad eegto always exothermic kelmadda exothermic waa scientific macnaheedu waa maxay markii uu falgalkaasi dhaco heat ma qaato laakiin dibadda uu soo saaraa heat markaas yani kulku dibadda uga soo baxaa marka waa exothermic kelmadda exo waa outside thermicna waa heat marka la isku geeyana waa heat dibadda usoo baxay marka exothermic baa la yidhahdaa marka give heat wuxuu sameynaya markaas yani inuu dibadda usoo saaro maxay kul inuu dibadda usoo saaro characteristic markaan halkan waxaan idinku sheegay character wax la yidhaha maxaynu uga jeednaa character markaad u eegayso luqadda chemistryga ti biologyga dhinaca gaar aynu micnaynay laakiin si chemistryga markaad u eegayso maxaa looga jeedaa character character waxaa la yidhahdaa chemical or physical property waa dabeecadda duleed ama waa dabeecadda kiimikaade that helps identifying and classifying substances yani ka caawinaysa inaad kala garato amaba kala aqoonsato walxu waxay kala yihiin yani character markaan leeyahay aniga human ahaan markaan leeyahay character baan leeyahay character kaas oo ay gaaro iga saara dadka intiisa kale yani walaxdana waxay leedahay character ka saara maxay da walxa intooda kale ka saara marka waxay noqonaysaa markaasi character waxa la yiraahdo waa is chemical or physical labada area chemical iyo physical yani watan hore usoo kala micnayno waa maxay waa nidaamka yani properties ama astaanta ay leedahay walaxda markaasi markaad eegto definition-kii waxaynu ku soo noqonaynaa oxidation-kii markaad eegto oxidation-ka marka hore waxaynu wadnay maxay ahayd combustion-ka oxidation maxaa la yidhaha oxidation is a process waa isaguna waa nidaam in which kaasoo chemical substance walaxda chemical changes ay isku bedesho because maxaa yeelay of the addition of oxygen iyadoo oxygen lagu daray markaan leeyahay kelmadda markaad idin leeyahay maxay ahayd chemical substance walaxda chemical markaan idin leeyahay walaxda chemical macni waxaan uga jeedaa walax kastaba falgal bay samaysaa falgalkaasi labuu noqdaa ama wuxuu noqdaa physical buu noqdaa laba walxood baa isdhex gala laakiin waa la kala saari karaa laakiin hadday walaxda kale la gasho ay soo saarto maxsuul ka duwan labadoodii waxa loo yaqaan waa chemical sida marka iron iyo oxygen markay falgalaan daxal bay soo saaraan markaas birtu way daxashabaad arkaysaa maxaa dhacay oxygen waxa falgalay iron kadibna waxay soo saareen marka walax iyagaba ka duwan oo daxal loo yaqaan markaas saas oo kale marka chemical substance baa loo yaqaan walax maxay chemical baa la yiraahdaa examples of combustion-ka waxaa ka mid ah combustion-ka tusaalooyinkooda waxaa loo soo qaadan karaa wuxuu soo celiyay combustion-kii hore markaad eegto combustion-ka tusaale waxaa loo soo qaadan karaa iyaga sidoo kale burning of coal gubidda waxaa loo yaqaano coolka dhuxul dhagaxda oo kale ama wixii shidaalka carboniga or wood ama qoriga to heat your home sid gurigaaga yani ugu diirsato dhuxul in dabka lagu soo rido xilliyada qabowda kadibna ay soo saarto markaas maxay kul si guriga uu noqdo mid diiran sidoo kale burning of fuels marka shidaalkii la kale la gubayo waxa kamid ah tusaalooyinka waxa kamid tahay markaas maxay combustion-ka kamid tahay waxa inoogu sii xiga oo casharkeena qaybta labaad ee qaybta kale noqonaysa markaan oxidation-ka iyo combustion-ka ka soo tago waxay noqonaysaa thermal decomposition waxa la yiraahdo thermal kelmadda thermal waa heat decomposition waa burbur waa burburada inta badan oo kulku keeno kulku burburada uu keenayo markaas inta badan kulku thermal decomposition baa loo yaqaan markaas marka la leeyahay thermal decomposition waxaan u jeedaa walaxba waxa dhacaysa iyadoo compound isku dhisaba heat lagu sameeyo kadibna way kala jabtaa waxayna soo saartaa maxsuulo ka duwan iyadii suppose guriga marka nuuradda la mariyo habeenkii isagoo cusub nuuradda la mariyo kadibna nuuraddaasi hadda dab inta dhex saaxata dab ku shido dabkaas wuxuu sameeyaa nuuradda jooga ee guriga la mariyay uu jajabiyaa wuxuu kala saaray carbon dioxide iyo carbonate buu kala saaraa markaasi carbon dioxide-ka maxsuulka ka soo baxaya markii hore nuurad baa laakiin kala jabintaasi waxay ku keentay maxay baro dhagaanood baahneen ama maxsuulo kale inay ka soo baxaan maxaa keenaya inay kala jabto nuuradda gidaarka marsan waxaa keenaya kulka dabka girgiraha dabkeed soo dhex dhigatay gurigu isaga keenay kulkaasi inuu kala jabiyo marka waxa loo yaqaan burburka inta badan compoundada ay ku keenaan thermalka waxa loo yaqaan heatka kulka waxa la yiraahdo definition-ka thermalka maxaa la yiraahdaa thermal decomposition is a chemical decomposition يعني هو بربر انت بدن كيميكات معني waxaan uga jeedaa waa walax kala burburaysa laakiin aan dib la isku soo celin karin yani dib aan soo falgali karin mardu chemical bay yani wuxuu falgalay wuxuu soo saaray maxsuul ka duwan kii uu ka yimid kadibna wuxuu noqonayaa maxay chemical buu noqonaya marka chemical decomposition waa burbur chemical causer bay ay keenaan heat kulka oo kale
further hadii si yani la sii faahfaahiyo qeexitaankana it's a process waa habka in which chemical substance habka walax chemical breaks down ay u kala jabayso when is the temperature increase markii kulku ama heer kulkeeda markii la kordhiyo markaad eegto thermal decomposition oo xogaa faahfaahin ku sii daraya thermal decomposition markaad tahay usual reaction is waa falgalada inta badan sida caadiga isaga dhaca usual because maxaa yeelay there is only one substance waxa jira hal walax oo to start lagu bilaabayo with yani hal walax lagu bilaabayo ingiriisiga yani hiya idin macneena macnuhu wuxuu yahay waa wuxuu ka bilaabmay marka hore compound isku dhisa waana hal walax oo kaliya laakiin kulku wuxuu ku sameeyaa walaxda inuu kala saaro maxay products maxsuul kala duwan markaas marka wuxuu leeyahay decomposition are usual reaction because there is only one substance to start with but more than one substance is produced laakiin waxa la soo saaraya walax halkii markii hore walax ku bilaabmay laakiin wuxuu soo saaraya more than one substance in ka badan walax kaliya soo saaray for example markaad eegto decomposition of a calcium carbonate ka decomposition ka ku dhaca calcium carbonate wax kala ma waa tamaashiirta oo kale yani baashi nuurada ahayd